مدحوينه حسن شيخ ugu baaqaya inaanu ka leexan dariiqii aan ku wada baadi goobaynay siyaasad loo dhan yahay ogaadaana in dadka Soomaaliyeed aanay iloobin hadalladiisii ahaa in qof kaligiis ahi aanu talada dalka isku koobi karin si aan dib loogu noqon dariiqii adkaa ee aan ka soo marnay dawladnimada aan maanta haysano guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xildhibaanadiisa dhammaantood waxaa horyaalla mas'uuliyad culus oo ay indhaha ku hayaan shacabka Soomaaliyeed oo la ildaran qaranjabka aan muddada dheer ku jirnay kasoo kabashada qaranjabkaas aan muddada dheer ku jirnayna waxay ku xiran tahay go'aanka aad idinku maanta ummadda Soomaaliyeed u qaadaan waxaan sidaa daraaddeed rajaynayaa inaad u hiilisaan dalkiina iyo dadkiina